gudoomiye hore degmada Togwajaale mudane Cabdi Saleebaan Xasan iyo qaar kamid ah dadweynaha ku dhaqan magaal ganacsiyeedka Wajaale ee gobolka Gabiley ayaa si adag uga hor yimday geed sun oo lagu beerayo banka mashruuca Wajaale kaasi oo wasaaradda beeruhu sheegtay inay siisay shirkad Chinese sidoo kale shacabka ku dhaqan magaal ganacsiyeedka Wajaale ayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu si degdeg ah wax uga qabto qorshaha wasaaradda beeruhu damacsan tahay in mashruuca banka Wajaale laga beero geed suna kaasi oo dadka iyo xoolaha aan faa'iido u lahayn dadweynaha ku dhaqan degmada Togwajaale oo la hadlay telefishinka caalamiga badda cas 24 TV ayaa waxay yiraahdeen sida tan Togwajaale oo runtii meel aad u wanaagsan waxbaristeedii caradeeduba isla markaana u baahan in la ilaaliyo lagana ilaaliyo waxyaabaha wax u dhimaya sida dhirta oo kale waxaan maalmahan ka maqlanay warbaahinta geeda laga beerayo aan wanaagsanin oo aan u fiicnayn deegaanka iyo dadka midna laga warhelaayo xukuumadda iyo dawladdu ilaalisa waxaas wixii ka jira talaba ciidamada degan banka saddexda ciidanka asluubta ciidanka qaranka iyo ciidanka booliska inay dhirta mas'uuliyintooda taliyayaasha ciidamada waxaan ku wargelinaynaa inay dhirta wax ka qabtaan arrin muran badan dhalisay oo ka taagan banka Wajaale taasi oo ah wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku wareejisay shirkad Chinese 200 hektar inay ka beerto geed loo yaqaano castor oil oo wasaaraddu ku sheegtay iyo mas'uuliyiinta shirkadda u hadlay ku sheegeen in laga sameeyo saliid dalkan uu faa'iido badan u leeyahay laakiin markaanu sameeynay cilmi baaris iyo aanu la kaashanay dadka aqoonta u leh aanu research badan sameeynay waxaan ogaanay geedkaasi inay dheeftiisu ay ka badan tahay dheeftiisa marka wasiirka wasaaradda iyo magaranaysa xukuumadda guud ahaan waxaanu ka codsananaa inay banku faa'iido badan ayuu leeyahay dalka oo dhan baa laga qoodin karaa haddii si fiican loo isticmaalo marka shirkadda waxa leenahay geedkaasi hanoogu bedesho geed kale oo faa'iido u leh oo dalka anfaca markaasi waxaan leenahay geedkaasi markaanu baarnay faa'iido badan noomala xukuumadda iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi waxaan leenahay banku faa'iido badan iyo wax soo saar badan buu leeyahay geedkana suurtagal kuma aha arrinkaas laga hubiyo wax kale oo faa'iido leh hala noogu bedelo geedkani sidaan ka akhrinay qoraalada iyo baaritaanka aan sameynay siirka ka soo baxa geedkaasi waxa uu sun ku yahay xayawaanka dadka iyo dhammaan cayayaanka oo dhanba sun buu ku noqonayaa dhulka iyo bankana qashin buu ku noqonayaa markaasi madaxweyne wax qashin noo keenaya oo dhib nagu keenaya oo deegaankeena erosion ku sameeynaya xumaynaya inaynu ka ogolaano maaha geedka kaasarka la leeyahay ee laga beerayo mashruuca magaalada Togwajaale 200 hektar waxaan ugu baaqayaa wasiirka beeraha Axmed Muumin Saad markay wasaaraddiisu ku fashilantay wax soo saarkii dalka inay yiraahdaan 200 hektar oo geedkaas aan beerana oo ilaa hadda aan la faahfaahin faa'iidada dalka iyo dadkaba uu leeyahay waxaanu ka codsan lahayn maadaama dalku yahay dal wax soo saar u baahan banka Wajaale yahay ban aad u wanaagsan inaad ka beerto mashruuc dadka iyo dalkaba anfaca oo bulshadu ka faa'iido sida khudaarta markay Itoobiya xirato aynu khudaar laan ka dhacaso magaalada caasimadda Hargeysa ayaa waxa dhacda markay Itoobiya xirato inaan dabaq guryaha qaar laga shidanayo marka adoo sida og in dalku wax bilaa wax soo saar yahay waxaan nasiib daraa inaad 200 hektar oo geedaan beeraya tiraahdo ayaa nasiib daraa marka waxaan oran lahaa xukuumadda in geedkaasi lagu bedelo wax soo saar kale oo dalka iyo dadkaba faa'iido leh ayaa wanaagsan waxaan oran lahaa haysan ganacsiga ku jeedana dadkaygu way soo jeedaan iyana noqon magaalo wax walba lagu tijaabiyo oo la yiraahdo ban halkaas aad banaano wax cidba war waxayna halka aynu ku soo tijaabsano waayo bariga aad aragtay dhul kuba bari weyn naga xiga marka maadaama in yaro banaano Wajaale dawladdu arkaso yaan laga faa'iideysan jeedka dalka ganacsiga lagu jeedo magaalada Togwajaale maadaama ay tahay magaalo ganacsiyeed waxaan isleeyahay wasiirku dadkaas jeedun buu ka faa'iideysanayeen dhulka warahayn buu isleeyahay adeer waanu soo jeednaayeen
dalka wax anfaca la kaalay baaqu ka diranaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la nahay in madaxweyne si degdeg ah wax uga qabataa geedka laga beerayo banka wajaale ee ay wato wasaaradda beeruhu waxa la nahay wasaaradda beeraha markay ku fashilmatay wax soo saarkii beeraha maadaama ay wajaalatay magaalo bank ganacsiyada oo wax soo saar fiican leh oo ay kaga faa'iideysan lahaayeen bulshadu roobabka daaya inay wax la soo saaro in la yiraahdo markii waxba laga qaban waayay geed sun ayaynu ka beeranaa oo company Chinese ay wato geedkaas oo aan u fiicnayn xoolaha iyo maxaan ku raay dadkaba marka baaqayga waxaan leenahay anaga dhalinyarada wajaale mudan madaxweyne oo ka biyadiin arrinka ay wato wasaaradda beeruhu marka waa in si degdeg ah wax uga qabataa geedkaas ma geedna wax cuntamaya marka waxaan leenahay aanu madaxweyne insha Allah ka rajaynaa inuu ka soo jawaabo arrin maalmaha bulshada magaalada saddex marayay mashruuci wajaale in geed lagu beerayo kaas la lahaa oo faa'iidadiisa aad loogu faahfaahin dawladda waxa ka codsan lahayd Muuse Biixi waxa ka codsan lahayd in geed kale loogu bedelo intii cuntadii aan naqaanay ee wadanka caan ka ahayd sida qawadinka iyo heedda waxyaabahaas aad u jeclaan lahayd in laga beero banka oo qawadinka la rabto laga soo saaro laxooxdii iyo qutaruri waxyaabihii la cunayay ee faa'iidada aad ka lahaa taasan madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ka codsan lahayn iyo wasiirka wasaaradda beeraha taasan nolol kula talin lahaa si uu faa'iido lahayn xukuumaduna wax macluumaad oo dheer iyo kama bixin marka waxaan codsan lahayn inay xukuumaddu loo beerto waxyaabaha dalagga intifaaca leh geedka waxa la sheegayaa inuu sun yahay oo la sheegayo wasaaradda waxaan ka codsan lahayn marka aad u cadayso faa'iidadiisa iyo dhibtiisa wayna sheegto marka hore hadduu dhib leeyahayna laga daayo dastir sheegay deegaamo badan baa laga soo diidaa leeyahay bariga ah marka meesha yaan lagu tijaabin dalagga hore loo yaqaanay wadanka laga beero beeraha wajaalana waxay aad ugu haboon tahay qawadinka iyo heedda Khadar Cabdillaahi telefishinka caalamiga badda Cas 24 TV degmada ganacsiyeedka wajaale gobolka Gabiley